war-saxaafadeed ay maanta soo saartay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed kadib markii ay shir ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen khilaafka ka dhex taagan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya waxa ayna ka digeen khilaafkani haddii uu sii socdo dhibaatooyinka ka dhalan kara sidaa darteed waxa ay ku baaqeen in khilaafka la joojiyo si degdega war-saxaafadeedkan ayaa waxa saxaafadda u akhriyay gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Guray Xaaji Xasan وصحافة حرنت السودانية الصومالية شرعية لتيمانت وخميسها طاروي تسايرات المارسو وحي كدودين حالة مريسو قارهان حصرت سياسات ودركة كجرو خاصهان خلاف كده حجر البرلمانك الصومالية هذا حرنته السودانية الصومالية وحي كدقيسا إلى سيس عضاء خلافات يلا سياسات هريري برلمانك دحديسا kuwaasoo haddii ay sii socdaan caqabad ku noqon karo habsami socodka hay'adaha dawliga iyo adeegyadii ay shacbiga u hayeen iyo guud ahaan geedi socodka nabadda taasoo keeni karto in la waayo wax yar oo haysan xaruntu waxay ku baaqaysaa kow in la ilaaliyo sharciga wax walba lagu saleeyo sharciga qof walba in uusan ka xadgudbin sharciga ugu sareeyo labo in la ilaaliyo danta iyo maslaxada guud ee qaranka lagana fogaado wixii wax u dhimaayo nidaamka dowladnimada ah saddex waxaan ku boorinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyaasha labada aqal Jawaari iyo Cabdi Xaash ra'iisul wasaaraha dhammaan labada gole ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada qof walba mas'uul ah inuu arintan u dabco tanaasul muujiyo si loo badbaadiyo dad waxay ururada bulshada duubabka dhaqanka culumada diinka haweenka dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka qayb galaan hal u raadinta arrimaha taagan si aan u dhimin iftiinka dawladnimo ee u soo baxay ummadda Soomaaliyeed dhanka kale Saciid Jaamac Qorsheel oo hore u soo noqday wasiirka duulista iyo hawada ee dawladda federaalka Soomaaliya oo ah gudoomiye ku-xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa isaguna goobta ka hadlay anagu guud ahaan talada aan ku wada gaarnay war-saxaafadeedku intaas ku dhan yahay run ahaantiina waxa kale ma ahaan waxa weeyaan in la xoojiyo in wadanka maxay ahayd sharci ahaan wax walba maaragtay lagu soo dabaalo in dadku la isu dabacsanaado in maxay ahayd ay noqoto waxa laga hadlay waa qaran wax uun maaragtay dad gaar ah iska leeyihiin iyo shakhsiyad gaar ah leeyihiin ma aha marka arinta taagan waxay tahay wax weeyaan maanta in dadku ay aad iyo aad meeshii aynu maranay oo sanadka markii hadda dawladda xukuumadda u dhamaatay lagu baaqayo lahaa wax khilaafaad haba yaraatay ma dhicin oo aad dadku ugu faraxsanaayeen waxaan aad u jecelahay meeshii la joogay iyo meel lamida in dib loogu noqdo taana caqliga la rabo inuu shaqeeyo istijiid badan waxba tari maayo marka annagu waxa waajibka naga saaran waxaan naadanahay dadka ummadda Soomaaliyeed horena ugu baaqanaynaa oo hadii joor talo wixii nala tahay inaanu soo gudbino taladana runtii ma aha mid kaliya ku ayna hawada marinayno waa mid aanu inta mas'uuliyiinta ay khusaysana si gaar ah aragtay arintan aanu kala hadli doono marka aad iyo aad baan waxaan leenahay dalka iyo dadka iyo ummadda loo turo hana loo soo jeesto baashan mar boqolaa joogtay qolaa tagisay wuxuu hadii loo arko in maslaxada guud ee dalka maanta ay tahay in nabad lagu dhameyn karayo oo wada hadal lagu dhameyn karayo oo is afgarad lagu dhameyn karayo deynka u baahan inaad waxa xaruntan oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin horay xilal uga soo qabtay Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadlay khilaafkan ka dhex taagan baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho.